وهرين waxaan halkan ka cadeynayaa in wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka Soomaaliya Ali Axmed Jaamac Jangeli iyo dawladda uu ka tirsanayay mudane Xasan Sheekh Maxamuud hadda dhacday inay sabab u ahaayeen fashilkii ku yimid wada hadaladii labada dawladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagoo oo ka cagajiiday inay fuliyaan qodobkii ugu horeeyay ee ugu muhiimsanaa ee ku saabsanaa maamulidda hawada dalkii la isku oran jiray Soomaaliya oo dunidu ay soo jeedisay in loo sameeyo guddi dhexdhexaada oo ka madax banaan arrimaha siyaasadda xaruntooda laga maamulay laga hagan laga dhigo Hargeysa arintaas dawladda Xasan Sheekh runtii way ka maagtay way kamay dhabaynin oo go'aan sax ah kamay qaadan arintaas waxay sabab u noqotay inay sii socon waayaan wada hadaladii labada dawladood sida ka warqabtaan hay'adda ECAO waxay asasmanadii ay sameysay oo dhan ay ku baahisay ku cadeysay dunidana u qirtay in goobta ugu wanaagsan ee laga maamuli karo hawada hadday tahay xagga nabadgelyada iyo hadday tahay xagga adeegyada inay tahay Hargeysa sidoo kale waxa ogeydeen wada hadalkii ugu dambeeyay ee Istanbul 3 in dawladda Soomaaliland ay soo dhigtay 3 qodob oo ku saabsan qaabkii loo wadaagi lahaa hawada iyadoo walaal la yahay loogana wada faa'iideysan lahaa 3 qodob hay'adda ECAO dhamaantood waxay tiri waa qodobo macquul ah dawladda Turkina way uga marxaati furtay qodobadaas waxay haayeen in xarunta ugu weyn laga maamulo hawada dalkii Soomaaliya loo jiray Hargeysa laga dhigo isla markaana la sameeyo guddi farsamo oo wada jira oo labada dawladood ay heshiis ku yihiin qodobka labaadna wuxuu ahaa in la sameeyo laba xarumood oo tameenkii Hargeysa noqoto talabaad ee supplementary-ga Muqdisho laga dhigo isla markaana guddi farsamo ay maamulaan qodobka saddexaad ee Soomaaliland soo jeedisay wuxuu ahaa in loo kala qaybiyo labada dal hawadooda oo qolo walba cid la kaashanaysa sida uu maamuleysaba ay u maamusho waxa soo wada hadala iyo qodoba waxa runtii ay ka socon waayeen dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waa ayaan darro wasiir Ali Jaamac Jangeli inuu maanta iraahdo waxana lagu wareejinayaa hawadii dalkii Soomaaliya isku oran jiray iyadoo bishii January aynu dhaafnay lagu qabtay dalka Hindiya shirkaas oo lagu soo jeediyay in hawadii dalkii Soomaaliya loo oran jiray loo qaybiyo 4 dal Hindiya Seychelles Ethiopia iyo Kenya in loo kala qaybiyo kadib markii wada hadalada ay guuleysan waayeen annagu ka Soomaaliland ahaan dunidana waanu tusnay iyagana waa soo bandhignay in naga dhab ahayd in hawadii labada dawladood lala soo wareego laga faa'iideysto laga madax banaaneeyo siyaasadda laakiin nasiib darro waxay ka socon weyday dawladda waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan dalalka Geeska Afrika iyo goboleedka IGAD beesha caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed maamultoodba waxaan u sheegayaa in qaabka kaliya ee hawada dalkii la isku oran jiray Soomaaliya lagu soo wareejin karo ama wada hadalka lagu maamuli kara inay tahay qaab isfaham waa heshiis labada dawladood ay gaadhaan ayaa lagu maamuli karaa oo lagu soo wareejin karaa suuragal dhinacna uma aha in iyadoo la isfiqaafsan yahay in hawadii qolo lagu wareejiyo waayo hawadu waa peaceful isku frequency baynu welinahay towerka Hargeysa iyo ka Muqdisho isku frequency bay ka hadlaan hadii qolo la israajo joobana waxa ka soo baxaya meesha finance iyo hawadii oo finance noqotay ayaa ka soo baxaysa waxaan halkan ugu baaqayaa sidoo kale dawladda la doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anagu rajaynaa insha Allah inuu ku guuleysto xilka iyo ummadda dhibaataysan inuu dhibta ka saaro waxaan u sheegaynaa inaanu qaadin talaabadii iyo wadadii uu maray dawladdii ka horeysay Xasan Sheekh Maxamuud oo gacan bidixaysay oo run ka sheegin mowduuca iyo xaaladda ay ku sugan tahay hawadii dalka Soomaaliya waxaan jecelahay in wada hadal kasta oo labada dawladood ay galaan ay furo u noqoto in laga heshiiyo hawada taasoo sababi karta hadii laga heshiiyo isu soo dhawaansho sababi karta in mustaqbalka labada dawladood wada hadalkooda ay ku guuleystaan fashilaad kasto ku timaada wada hadalada iyo xasad kasto la xaasiday in Hargeysa xarunta laga dhigo waxay sii fogeynaysaa isu soo dhawaanshaha labada ummadood oo ka sugaya runtii wada hadalada labada dawladood inay noqdaan qaar ay ka soo baxdo wax natiijo ah oo labada ummadoodba ay raali ku yihiin aad iyo aad u mahadsantahay salaam alaykum Somaliland, Somaliland,